Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada kanaalkeena Guur Academy. Maanta waxaynu ka hadli doonaa nolosha ardayga dhigta kulliyadda caafimaadka ama kulliyadda daawada iyo qalliinka guud ama Faculty of Medicine and Surgery. Waxaana isla eegi doonaa 10 shay ay muhiim tahay inaad ka ogaatid barashada caafimaadka iyo nolosha ardayga kulliyadda caafimaadka barta. Inaad noqoto arday caafimaadka barta waxay kaaga baahnaan doontaa hawlkarnimo iyo dadaal dheeraad ah. Una dadaasho sida ardayda kale ay u dadaalaan in ka badan. Waxaa jira khuraafaadyo badan ay dadkeena ka aaminsan yihiin barashada caafimaadka, laakiin run ahaantii barashada caafimaadka waa mid raaxo leh, xiiso leh, abaalmarino badanna leh, gaar ahaan marka la eego inaad bulshada ku dhex yeelanayso magac iyo sumcad. Haddaba fiidiyogan waxaan ku sharxi doonaa oo aan kusoo gudbi doonaa 10 shay oo ku saabsan nolosha ardayga barta caafimaadka ama kulliyadda daaweynta iyo qalliimada guud. Qodobka koowaad, markaad dhammaysid barashada kulliyadda caafimaadka, waxaad awood u yeelan doontaa inaad isticmaasho oo aad ku anfacdo waxaad baratay inta ka dhiman noloshaada. Qodobkan waa mid laga wada siman yahay oo kulliyad kasta waxaa loo galaa ama wax loo bartaa in aqoon laga faa'iido, qofkana shaqo ku helo. Laakiin runta waa in la iska indha tirin, taasoo ah in koorsooyinka badankood ayaa ah in runtii wax u baranayso si aad ugu gudubto imtixaanadaada oo macluumaadkii aad ku dadaashay inta badan waxba kuu taraynin. Laakiin tan ma ahan mid ku badan kulliyadda caafimaadka ama Faculty of Medicine and General Surgery, oo maado kastoo muhiim ayay kuu tahay, sida maadooyinka anatomy, physiology, biochemistry, pharmacology iyo pathology oo dhammaantood si toos ah loogu dabaqo baaritaanka, fahamka iyo daaweynta cudurrada. Muhiimna ay tahay qof kasta oo kulliyadda caafimaadka barta inuu si fiican u barto una fahmo. Markaad baranaysid kulliyaddan uma baranaysid imtixaan inaad ku baastid, ee waxaad u baranaysaa in wixii aad baratay dadka ugu adeegto. Waxaana lagugu aamini doonaa waxa ugu qaalisan oo qof lagu aamino oo ah naf bini'aadam ah. Waana muhiim inaad ku dadaashaa waxaad baratay oo xirfadahaaga caafimaadka horumarisaa. Qodobka labaad, mararka qaarkood waa shaqo adag barashada caafimaadka, laakiin dhammaan ma ahan shaqo adag. Mararka qaarkood waa shaqo adag barashada kulliyadda daaweynta iyo qalliimada guud, oo celcelis ahaan isbuucii waxaad dhiganaysaa jaamacadda 6 maalmood. Maalin kastana celcelis ahaan waxaa xiisad qaadanaysaa 5 ilaa 9 saac oo xiriir ah. Iyadoo intaas oo saacadood oo cashir aad qaadanaysay, waxaad u bahnaanaysaa waqti kale oo dheeraad ah oo notiskii iyo mulaaxadaadkii iyo cashiradii iyo buugaagtii aad ku akhriso. Sidaa darteed, barashada kulliyadda daaweynta iyo qalliimada guud waa kulliyad caqabadaheeda iyo challengegeeda wadata, oo waqti badan oo diraasad ah iyo dhabar adeeg inaad bixiso kaaga baahan. Laakiin dhammaan ma ahan shaqo adag, ee ha ka cararin, hana argagixin. Oo kulliyadda daaweynta iyo qalliimada guud waxay noqon kartaa mid shaqo badan, laakiin weli waxaad haysataa waqti badan oo aad ku raaxaysan karto iyo khibrad badan oo aad ka faa'iidi doonto ardayda isku fasalka aad tihiin iyo waxaad baratayba. Waana muhiim waqtiga aad fasax tahay ama firaaqada aad tahay waxyaabo caafimaadkaaga iyo waxbarashadaada faa'iido u leh inaad ku mashquushid, oo aan waqti badan iskaga lumin daawashada fiidiyowyada maalayacniga ee YouTube-ka lasoo dhigo, kuwaas oo aan faa'iido ku lahayn, iyo social media kale, iyo inaad waqti badan ku lumin oo aad waqtigaada uga faa'iidaysato wax ku anfacaya, kuwaas oo kuu fududeynayo inaad noqoto dhakhtar fiican oo la mahadiyo. Qodobka saddexaad, barashada caafimaadku waxay ku xiran tahay inaad si fiican u baratid maadooyinka aasaasiga ah sida anatomy, physiology, pathology iyo pharmacology iyo kuwo kaleba. 6 sano ee la dhiganaya kulliyadda daaweynta iyo qalliimada guud, waxaa 3 sano ee ugu horeysa la qaataa basic subjects ama maadooyinka aasaasiga u ah caafimaadka sida physiology, anatomy, pathology iyo kuwo kaleba. 3 sano kale ee soo hartay, 2 ka mid ah waxaa lagu qaataa maadooyinka kiliiniga ah ama takhasusida caafimaadka ee kala duwan sida pediatrics, dhakhtarka carruurta, obs and gyna, dhakhtarka haweenka, iyo surgery, dhakhtarka qalliinka, iyo takhasusyo kale oo badan. 1 sano ee ugu dambeysa waa internship, oo waxaad ka shaqaynaysaa isbitaallada oo practical ayaad ku qaadanaysaa. Marka si aad dhakhtar fiican ugu soo baxdid, waa qasab inaad si fiican u baratid maadooyinka aasaasiga ah ee 3 sano ee ugu horeysa la qaato. Maadooyinkaas waxaa ugu muhiimsan anatomy, physiology, pathology, pharmacology, biochemistry iyo kuwo kale oo badan. Qodobka afraad, waxaa ka dhigan doontaa qaar ka mid ah saaxiibadaada kuwa kugu dhow kuwa barta cilmiga caafimaadka. Ku dadaal inaad waqtigaaga inta ugu badan aad siiso ardayda isku jaamacadda iyo isku fasalka tihiin, sababtoo ah dadka inta ugu badan waxay aad ugu dhowaadaan dadka aan isku takhasuska ahayn oo maanta oo dhan ka sheekaysanaya banooni iyo social media waxa ka dhacaya,
oo adigana wax faa'iido ah kugu jirin. Laakiin haddii aad saaxiibo ka samaysato qaar ka mid ah ardayda aad isku fasalka tihiin, waxay faa'iido u tahay adiga iyo saaxiibadaada, oo casharadii aad soo qaadateen waad wada muraajaceynaysaan, oo qof kasta wuxuu fahmayo aad ku faa'iideynaysaan, oo xataa waa isdhiirigelinaysaan. oo haddaa caajisan tahay aad aragti saaxiibada oo wax aqrinaya, adna dhinacaada ayaad ka aqrinaysaa, oo dhiirigelin ayay ku tahay saaxiibada isku fasalka tihiin agjoogooda. Qodobka shanaad, barashada kulliyadda caafimaadka waxay kula socodsiinaysaa baaritaanada caafimaad ee ugu dambeeyay. Cilmiga caafimaadka keliya ma ahan mid ku kooban textbookska ama buugaagta maadooyinka, oo maalin kasta ayaa baaritaano la sameeyaa oo wax cusub lagu soo kordhiyaa cilmiga caafimaadka. Sidiisa dhanna cilmigan caafimaadka waa baaritaano iyo tijaabooyin la sameeyey oo lagu guulaystay, kuwaas oo quseeya bini'aadamka. Marka intaad baranaysid kulliyadda caafimaadka ama haddii aad dhakhtar noqoto, xataa waa muhiim inaad la socoto waxyaabihii ugu dambeeyay ee baaritaanka lagu sameeyey ama la soo saaray, kuwaas oo quseeya caafimaadka. Qodobka lixaad, barashada kulliyadda daaweynta iyo qalliimada guud waa koorso dheer oo waqti badan qaadanaysa. Barashada caafimaadka waqtigeed aad ayuu u dheer yahay, oo waa 5 ilaa 6 sano oo diraaso ah, oo xataa waxaa laga yaabaa inaad wax fasax ah lagu siinin sanadaha ugu dambeeya ee diraasadda. Sababta ay kulliyaddan waqtigeeda u dheer tahay waa maadooyinka la qaadanayo oo aad u badan, iyo xirfadaha lagu baranayo oo u baahan waqti aad u fara badan. Inkastoo ay tani u muuqan karto mid hawl badan u baahan, haddana runta ayaa ah in waqtiga jaamacadda u muuqato in si dhaqsi ah kuu dhaafayo oo aad aragtid adigoo jaamacadda dhameeyey. Qodobka 7, intaad baranaysid kulliyadda daaweynta iyo qalliinka guud, waxaad leedahay fasax. Laakiin fasaxaada waa inaad uga faa'iidaysataa inaad ku muraajacaysid wixii aad semestaradii hore soo qaadatay oo dib ugu noqotid. Sidoo kalena waa muhiim inaad baartid oo aad akhrisid semesterka soo socda waxaad qaadan lahayd, si adigoo diyaarsan semesterka dambe kuugu bilowdo. Taasi macnaheedu maahan in fasaxa oo dhan wax akhris iyo isdiyaaris ku jiraysid. Sidoo kalena waa muhiim in waqtigaada aad ku raaxaysatid oo aad ku nasatid. Qodobka 8aad ee muhiimka tahay inaad ku ogaatid barashada kulliyadda caafimaadka, habeynta casharada iyo notiska iyo waqtigaba waa muhiim intaad baranaysid kulliyadda caafimaadka. Waxbarashada jaamacadda run ahaantii waa inuu ardayga ahaadaa mid waqtigiisa ka faa'iidaysta, oo jaamacadda waqtigeeda dhowra, casharadana si fiican u qaata, notis fiicanna qaata, casharadiisana ay u habaysan yihiin, kuna noqnoqda casharada oo muraajaceeya mar walbaba. Sidoo kalena waa inaad isku tiirsanaataa oo jadwal gaar ah ku socotaa intaad dhiganaysid kulliyadda caafimaadka. Ahawna mar kasta mid waqtigiisa ka faa'iidaysta si uu u noqdo dhakhtar wanaagsan. Qodobka 9aad, haddii aad ka gudubto imtixaanka jaamacadda, waxaad noqon doontaa dhakhtar. Qodobkan wuxuu u muuqdaa inay ka wada siman yihiin kulliyadaha oo dhan, oo arrin iska caadiya tahay. Wayna mudan tahay inaad ka fikirto arrintan intaan jaamacadda gelin, oo haddii aad imtixaanka jaamacadda ka gudubtid, waxay caddaynaysaa inaad si fiican u baratay maadooyinkaas, oo karti kugu filan aad u leedahay si aad u sii waddo waddadii aad ku noqon lahayd dhakhtar. Tani waa muhiim sababtoo ah kulliyadda caafimaadka markaad dhammaysid, wax shahaado ah lagu sii maayo haddii hal maado imtixaankeeda lagugu leeyahay oo aad ku dhacdid. Sidaa darteed, maado kasta aad qaadanaysa waa muhiim, waana qasab inaad imtixaankeeda ku baastid si aad dhakhtar dhammaystiran u noqotid. Qodobka ugu dambeeya ee 10aad ee muhiim tahay inaad ku ogaatid barashada kulliyadda caafimaadka. Inta badan asxaabtaada waxay noqon doonaan kuwo caqli badan. Ardayda caafimaadka barata waxay ka kala imaadeen iskuulo kala duwan. Haddii si loo fiirshana, kulliyadda daaweynta iyo qalliinka guud waxaa soo gala ardayda ugu sarreysa iskuulada, uguna dadaalka badan, aadna u caqli badan. Qof kastana doonayo inuu ka guul gaaro kulliyaddan. Mararka qaar waxaad dareemaysaa inaadba waxba aqoonin marka ardayda aad isku fasalka tihiin isku barbar dhigto. Taasina waxay ku keenaysaa inaad ka niyad jabto jaamacadda. Marka waa muhiim inaad weligaa qofna isla barbar dhigin, oo aad adiga ahaataa, oona isku kalsoonaataa, qofna aanan sugin, iskuna haysataa qofka ugu caqliga badan uguna dadaalka badan ee fasalka dhex fadhiya, ficilkeedana la timaadaa.